subuskaray kasaro kambalel kafurao laygana kudabaqabo lacagka majoogay. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقيمها إيه شرف كله الصور لوادا يوتيوب channel كان لقى في رسالة مانتيتو وسجل عبدي إن مانتيتو وحا عن موضوع يوكسر سنة هاي وحوية فنانينتي ببلايا كند عضي عيبا كند عي شرف درا كند عضي وحان فنانينتي اللي أقون شربا كند عي وحان قبلها الصوماليات اللي أقون شربا كند عي قربه بلايا كتمد فنانينتي وعذره فالحن بيماتي تدفديان waxay ku faanayaan qaartimo qaar waxay ku faanayaan nasabnimo qaar waxay ku faanayaan nasabnimo dhiman war waxaas wax loo baahan yahay maahan waxaas wax sharaf la maahan bal midda timaha ku faanaysa waa nasteexa qaranay ma timaad haysa tintiin baa ka taagan geedkii gurigayga ka dambeeyay oo gurmo go'anka ahaabaad madaxaaga moodaa qof weyn oo waa yeelana waa tahay oo maantayto haddaadan iga weyneyn igama yerin waa yeel gurmo go'an wataa tahay sharaftii iyo karaamadaad ka tagtay waxa ag fadhida mid aad moodid daanyeer jirin mid aad moodid baa ag fadhida oo ku haysa wallahi bilaahi waa ku caayha haddii ku caayo ma dhalaysid sharaf ma qabtid waxaa waaye na waxaasoo kale wax sharaf la maahan nasabnimada aad ku faanaysid mid kaa muuqata ma ahan haddaad gabar nasaba tahay ama gabar sharaf la tahay ama gabar qiime iyo sukuud iyo akhlaaq la tahay meel baad fariisan lahayd fanaanad haddaad tahayna fanaannimada sharafkeeda ma aad ceebayseen iska daa ayada midaan nasteexo madaxa gurmo go'an kaa wadata waaba soo qubaysato daba iyo dacal waaba qaawan tahayba iyadu waxaa weeye ma jirto madaxiyo aad moodid kalxawaaji waa garab yaacahaya salka madaxa salkiisii waxay ka taamanaysaa gucumo yar yaroo aad moodid tintiin yaroo la aruushay tima ayada waa u gooyeen madaxa quruxdiisna waa u goysay xagga iska dhig ayada waxaa kuu soo hartay naagta la yiraahdo ina tahliil waa naag qiime iyo sharaf leh waa naag aad u qurux badan waa naag suuqa idinku ciriiriday waa naag quruxdeeda iyo bilicdeeda la taagan waa naag isu soo bannaan dhigtay runta hadday sheegto tiri fanaaninta qaar baa nagu aflagaadooday oo mataqaanaa waxyaalo yar yara noo geystay gacmo geel jiro hoos baa loo dhaqaayay hoos inaad u dhaqdaan ba ahayd laakiin inaa idinku media la soo istaagtaan oo dhahdeen hebel baa yiri aan ku maaragtay aan ku daymoodo hebel baa yiri anigu afkayga kuma ballaarin kara hebel baa yiri aan ku fiiriyo hebel baa yiri qaybta dambe aan kaa eego maahan wax qurux badanna maahan asluubtii baad ka tagteen sharaftii baad ka tagteen karaamadii baad ka tagteen fankii baad ku cayaarteen sharaftii fankaad disheen waxaa idiin soo haray kuwa le anaa nasaba iyo anaa nasaba war dadku waa kala xoog badnaayeen waagii hore waana la kala awood badnaa waana la kala dad badnaa ninka dadka badan wuxuu gumaysan jiray ninka dadka yar sidaas awgeed ninkii dadka yaraa oo xoogga yaraa waxaa la yiri midgaan baa tahay war midgaan wax la dhahaa ma jiraan war kalmadda midgaannimada la yiraahdo ha laga dagaalamo war midgaan wax la yiraahdaa ma jiraan war addoommada ilaahay waa siman yihiin war addoommada tan isku calool bay ka soo baxeen isku uur hooyay jiifeen wax dadkii marka dadka la leeyahay waa nasab dhiman wax nasab dhiman la yiraahdaa ma jirto kuwa nasabka isku sheegaya iyo kuwa nasab dhimanka lagu sheegayo waa walaalo uur hooyay wada jiifeen waa kala awood bateen waxa laga adkaaday oo madaxa laga garaacay kuwa nasab dhimanka lagu sheegayo maantayta awood bay leeyihiin waa kuwa caanaha isku daadinaya naagahoodii oo maaragtay caanaha hadda isku shubahaya oo heeryadii saarneyd iska tuuray ma ahan inaad tiraahdaan gabdhihii nasabka isku sheegahayo inaad bannaan cidla idinkiyo fool xun oo ducufo ah maantayta waxaa idinka qurux badan gabdhihii nasabka ahaa bal gabdhaha nasabka iyo idinka nasabnimadu ku faanaya bal isa soo garab istaaga bal nasteexa qaran iyo ina tahliil haysa soo ag istaageen keebaad qaadan lahaydeen ilma adeeryaal ilaahay baa idinku dhaariyay kee qaadan lahaydeen ina tahliil baan qaadan lahaa waa midda kale mid kale waxaa ag fadhida nasteexo aad moodid shaydaan la ceejiyey oo afkeeda waxa ka deganaya aad yaabaysid motor baad moodaa inuu ku xiran yahay na waxaas waa laga fiican yahay nasabnimo haddaad leedahay nasabnimadaada meel la fariiso waa midda kale taas waxaa idiin sheegayaa arrinta tan waxaa ka seexday culummadii waxaa ka seexday caamadii waxaa ka seexday salaadiintii
waxa ka seexday cuqayladii waxa ka seexday nimanka la yiraahdo maqaawirti waaweyneyd waxa ka seexday bulshadii caadiga ahayd war sida gabdhaha yaryarka ah qaybtooda hoose oo aad leedihiin fircooni iyo waxa la yiraahdo fircooni iyo sunno aad ula kala ordaysiin oo aad u leedihiin gudniinka fircooniga ah laga leexdo gudniinka fircoon gabdhaha qaybtooda hooseba waad ku diriraysiin ma nasabnimo dadka nasabnimadooda la gaasirahayo iyo dadka nasabnimadooda isku sheegayo miyaad u kala xaq saari weydeen war qof ashahaatay oo soomay oo salaaday oo xajka ilaahay tagay war nasabnimada u dhimano maxay tahay war waxaa nasab ah labadaa qofka aan xajka ilaahay tagin oo soomin oo salaadin oo sakaysan kaasaa nasab dhiman aan dhihi karaa maantayto nasab weeye ninkii mataqaanaa intaas buu oofiyey wanaaga ah nasab dhiman waxaa la yidhahdaa ninkaan intaas buu oofin oo wanaaga ah ha laga daayo dhasxumada suuqa taalla iyo miidiyaha ha laga daayo gabdhaha caanaha isku shubay waa quman yihiin horay u socdaan idin leeyahay gabdhaha nasabnimada ku dagaalamahayo bacaad ilaaha taagatay waxaa kuu soo haray naagta la yidhaahdo ii sheeg magaceeda gabadha la leeyahay waxaa guursaday nin nasab dhimana bahalkii bay noqotay midgaan bay noqotay gabadha la leeyahay naa dooqaagaad ka cayaartay dooqaaga wanaaji oo muuji oo ku dhimo oo cidiyaha ninkaaga madaxa saaro oo ku dirir anaa kugu gacan siiyey intii caqli lahaa kugu gacan siisay wadaadka sheekha ah run hadduu sheegaya 4 naagood buu qabaa laba ha ka dhigo gabdhaha la caayayo oo la leeyahay waa nasab dhiman labana ha ka dhigo kuwa ammaanta isku sheegayo oo la nasab baana ninka ugaaska ah 4 naagood buu qabaa laba ha ka dhigo dadka la yasayo labana ha ka dhigo run hadduu sheegayo dadka mataqaana oo nasabnimada lagu sheegayo dadka ha la isku dhafo tarankana ha la isku dhafo waxa la yiraahdo caruurtu isma caydeen hadii labadan ay hooyadood ay tahay kuwa la yasayo labadan hooyadood ay tahay kuwa wax yasaya hadii ay isku aabana dhalay la isma yaseen la isma caayeen dadka waxa kala dilaya waa culumada iyo dadka waaweyn oo maqaawirta iyo salaadiinta oo runta u kala sheegay oo aan ayagu gabdhihii guursanayn wiilkoodana aan u ogolayn inuu guursado marka Maryam Mursal waxay tiri masaajidka ciyaarta laga daayo war biriga ciyaarta laga daayo biriga ciyaarta laga daayo adduunka la taagan yahay biriga waa biri baa la dhahay ciyaarta laga daayo isqiima ridkana laga daayo sharafta la kala dhantaalaya laga daayo culumada ku soo baxa caamada ku soo baxa dhalinyarada ku soo baxa islaamaha ku soo baxa gabdhaha ku soo baxa wiilasha ku soo baxa arintan farha loo celiyo war adoon walowba adoonkaad caashiqdid guurso ilaahay baa ku dhaariye wax nasab dhiman la yiraahdaa ma jirte nin walowba ninkaad ka heshid guurso war gabdhaheena Jamaican baa guursanayo American baa guursanayo Ingiriis baa guursanayo Afrikaan buryaqabaha guursanaya war maxaad ku diideen ninka kula midabka ah oo kugu kalarka ah oo kugu sharafta ah oo kugu diinta ah oo kugu magaca ah oo kugu salaada ah oo kugu xajka ah maxaad ku diideen soo dulmi ma ahan waa dulmi sharaf iyo karaamo ma ahan in gabdhaheena la caayo mataqaana gabdhaha xunxunka oo saqajaamiintaana la amaano waxaas wax fiican maahan gabdhaha xunxunka saqajaamiinta marka aan leeyahay waa kuwa xunxun oo cadaanka isku sheegayo afrikaanka isku sheegayo way guursadaan wiilasheen gabadha Soomaaliyeed ah shahaadanayso oo walaal macaan leena waa garab dhaafaya sida la isku dhaamo waxaas wax sharaf la maahan wax qiimo la maahan waxaan doonayaa in arintaas laga soo falceliyo oo laga soo jawaabo